السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي دمانتي الملك عالم قد كجوكتان بس كسو نقد وناكسن waxaan idin rajeynayaa khayr iyo barwaaqo waxaa jirta oraha tiraahda we suffer more often in imagination than in reality tan macnaheedu waxay tahay inta qofku fakar ahaan oo silic maro ayaa inta badan ka badan silica uu ka maro marka wax si toos ah ay ugu dhacaan markaad maanta naftaada fiiriso waxaan ku hubaa in saddex walwal ay ku hayaan mid waa shalay midna waa waqtigan hadda aad joogto midna waa berri boqolkiiba 90 ama boqolkiiba 100 xataa aan iraahdo waxaynu walwal badan ka qabnaa mustaqbalku waa waxaan la hubin inaad gaari doonto lama oga maalmo badan oo tirsanayso oo mustaqbalka ku jira waxaa laga yaabaa qaarkeen in aysan ahayn maalmaheenii ee laynoo ku talagalay intaa ka hor adduunkan baynaan ka tagno ujeedada hadalkan uga socdaa waxay tahay in diiradda aad saarto waxa aad qaban karto waqtigan hadda aad joogto haddaad maanta naftaada fiiriso waxaa laga yaabaa inaad ishesho inaadan boqolkiiba boqol waqtigan hadda aad joogto aadan noolayn ee aad nooshahay waxaan la hubin iyo wax tegay inta badan sidaynu u badannahay wayna ka hoos baxdaa qiimaha waqtigan hadda aynu joognaa uu leeyahay sababtuna waxay tahay qofku xaaladda waqtiga markaa haysata waxaa laga yaabaa shaqo la'aan inuu yahay waxaa laga yaabaa weli noloshu inaysan isugu aadanayn mar badanna waa laga yaabaa inaad iga maqasheen markaad dhalinyaro tahay wax fara badan oo nolosha ka mid ah isuguma ka aadana waana caadi waa meesha qofku uu casharada nolosha lagama maarmaanka ay u tahay berri uu ka qaato haddii maanta dhalinyaronimadaada aad is aragto in nolosha xarigaad xirtaaba uu kaa furanayo cashar baa kuugu jira guuldarro kastood la kulanto waxbaa ku dhex jira cashar baa ku jira casharka adigu ha qaadan waayin haddii kale in badan sida dhacda noloshu sideedaba dhangadda taariikhdu ina kama dayso way soo celcelisaa waxyaabaha qaar ina soo mara ba waxa laga yaabaa cashar inaynu ka qaadano in loogu talagalay laakiin casharka maadaama aynu qaadan weynay in mar labaad ay taariikhdu soo celiso dhangaddaasu mar kalena way kugu dhigi ilaa aad casharka ka barato ood wax ka qaadato sidaasay kuugu socon wana meesha dad badan ay yiraahdaan waa nasiib daranahay aniga la iguma talagelin dadka kale wax walba way helaan anigu ma helo iyo wixii lamida laakiin isku soo duuduub qof kasto ina kamida marka aynu xaaladan iyo waqtigan hadda aynu joogno diiraddeena xooggeena tabarteena aqligeena isugu keenno ayaa waxa nolosha aynu ka doonayno ay sahlan tahay inaynu gaarno laakiin inta awooddeeni maskaxda ilaahay uu ina siiyay in kamid yahay ay berri ku maqan tahay beridaas oo laba hubin inaad gaari doonto qaybta kalena ay ku maqan tahay shalay iyo wixii kugu dhacay way adag tahay awood buuxda oo diiraddeedu ay saxanto fasiix tahay inaad u hesho maantadan aad taagan tahay waxa kula gudboon inaad hagaajiso ama aad qabato mid waxa jirta aan aaminsanahay oo dhici kartaba xataa inaad iga maqasheen marar badan tani waxay tahay qof kibir badan iyo qof xishood badan ee labaduba waxun bartaan sida doontidba uga xishood dantaada maalin walba nolosha hadda aad ku jirto iyo sida aad dareemayso ayaa dareemi doontaa haddii maalinimadaadu si ay maalin walba ku bilaabato sina ay ku dhammaato natiijada maalin kasta kuu soo baxaysa ilaa maalinta waxa gudaheeda aad qabato aad isbedel ku keento wax kamid ah bini aadamka kuwa badan waxaan ku hubaa magaalada hadda aad degan tahay kula degan kaagana aqoon badan waxa nolosha aad ku hanweyn tahay inay ka buuxaan inaad u tagto oo weydiiso waxa dhici karta inaad ka xishoonayso laakiin qofku dantiisa inta uu ka xishoonayo xishoodkani waa kan dhaleecaysan waa kan ay tahay in aad noloshaada ka masaxdo ka tirtirto waxa dhici karta hal su'aal oo weydiisay in waxa nolosha aad raadinayso ama albaabka aad rabto inaad gasho furihiisa bay inay kugu dhex jirto haddii marka kibir uu kugu jiro ama xishoodka kan dhaleecaysan aad ku ibtilaysan tahay way kugu adag tahay in nolosha tan aad tallaabo hore u qaado waa lagama maarmaan in dantaada aad isa soo hordhigto qofkan xishoodka aad ka xishoonaysaa muxuu yahay waa ma aqaano shayga sax ma qof adduunkan waxa uu yaqaanay baa jira maalintuu dhalanayay waa maya qof walbaaba wax walba dib buu ka bartay nolosha tan wax la yiraahdo u dhalasho ma jirto dad badan baa waxa laga yaabaa inaad ka maqasho waxaas waa u dhalasho laakiin wax u dhalashahay ma jiro gacantan iyo lugtan iyo ishan kugu taala way yaryaraayeen oo way koreen laakiin wax kale oo dabeecad ah ama dabciyo qofku uu yeeshay ama karti oo u dhalasho ah ma jiro xaqiiqadu waxay tahay ilmuhu marka uu aad u daa'ir yahay waa geesi aad buu u dhiiran yahay intaasoo jeer buu kufaa haddana ma daayo wuu ku celceliyaa haddana isla ilmaha laftigiisa ba maalintuu 30 soo gaaro aan tallaabo hore u qaadi kareen waxyaabo badan cabsi baqdin maxay tahay sababta la baqayaa
waayo nolosha waxyaabo fara badan oo uu soo arkay iyo dad badan oo noloshiisa uu la kulmay oo negative iyo bini aadamku waxyaabaha ay ku yiraahdeen cabsi gelinaya qofka qalbigiisa ilaan qofka waxa cabsida qalbigiisa ku beeraa waa waayitaan buu ka baqaya inuu wax waayo tusaale ahaan lacag baad haysataa ganacsi baad rabtaa inaad geliso waad ka baqi ama lacagtu ka gubataa waxa laga yaabaa wadan kale inaad rabto inaad aad waxaad isleedahay talow ama ku hagaagi weydaa waxaad isleedahay balluuqada tanbaro laakiin waxaad isleedahay amaad baran kari weydaa adiga way kugu adagtahay 40 baa jirta 50 baa jirta waxyaabaha daciifka ah oo dhan noloshaada ka masax dhinac iska dhig cid kuu soo socota oo ku baraysa ma jirto cid kuu soo socota oo kuu qabanaysa ma jirto fikraddu sideedaba bini aadamku qof basiba u tahay waxa laga yaabaa qof inuu tala ku siiyo oo ku yiraahdo taladan waxaan ku hubaa inaad meel ku gaari doonto laakiin haddana isku si uga ma falceliyaan waxa dhici karta laba qof oo isku daa isku magaalo jooga in labadaba hal mar tala la wada siiyo laakiin natiijadoodu ay kala duwanaato midna uu guuleysto midna uu guul daraysto laakiin isweydiintu maxay tahay labadooda farqiga u dhaxeeya maadaama talada qofka ay ka qaadanayaan uu hal qof yahay labadoodana isku mar talada la siiyay maxaa kala duwi kara kula tahay natiijada labadooda ka soo baxda wax qabadkooda ma talada labadooda isku marka la siiyay halka qof uu wada siiyay baa loogu kala axday bay kula tahay waa maya waxa la yiraahdaa lo'du biyo cabtaa caana saafiyo macaan oo caafimaad leh baana laga maalaa masku biyo cabaa laakiin sun buu leeyahay oo qofku qaniina waxa laga yaabaa in naftu aysan baa isbitaalka la gaarin tan ujeedadan ama tusaalaha aan u keenaya waxay tahay uga dan leeyahay labada qofba waa isku mid talada la siiyay waqtiga la siiyay qof walbaaba waa maqlay laakiin qof walbaba shakhsiyad ahaan bay ugu xiran tahay sida uu talada yeelo midna maalin walba cimrigiisa go'aan wuxuu ku qaatay in uu dul taagnaado oo sidii loo sheegay uu wax u qabto midna maalintay ka tusto maanta waa daalanahay maanta caajis bay haya maanta xogaa yara mashquul baanahay maanta igama hayso bay ka noqotay taasaa keentay labadoodu in natiijada soo baxday ay ku kala duwanaadaan haddaba waxa u baahan in qof kasto ina kamida inaynu ka shaqeynaa waa naftan inagu jirta gudahan inaynu ka shaqeyno muuqaalkan kore iyo banaanka si walba waa u qurxin karnaa laakiin haddaynan gudaha ka qurxoonayn way adag tahay nolosha tani inay banaankan ka qurxoonaato waa in gudahaaga kow rajo wanaagsan aad qabto inaadan ilaahay malaxun ka qabin inaad salaadahaaga hagaajiso in aad adkaarta subaxii la akhristo aad akhrisato habeenkii markaad seexanayso inaad ducaysato oo rabbi xusto in aad adoon ilaahay ku xiran noqoto oo aad si dhammaystiran Allah subhanahu wa ta'ala u tala saarato haddii murugo iyo ciriiri iyo kurbo ay kula soo gudboonaato inaad Allah subhanahu wa ta'ala dhankiisa u cararto fafirru ila Allah xagga ilaahay u carar markii mushkilad iyo ciriiri xarig baxri ku xiri waayo tanan ku gunaanadaya adduunkan yaa iska leh Allah adigana yaa ku leh Allah yaa wax sakhiri kara Allah yaa ku fududayn kara Allah adduunkan intan aad soo joogto dhanba ilaahay baa umuurahaaga dabarayay adigu wax badan nolosha tan isku maadan aadisateen neeftan iyo naqaskan haddii lagu yiraahdo adiga ka masuula ee iska soo saar kaliya ayaadan xataa awoodin wax kale iska daa haddaba marka mushkilada ay kugu timaado ama ciriiri aad dareento qalbiga rabbigii lahaa u celi marba haddaad aragto walwalka adduunyada iyo ka fakarkeedu inuu kugu badan yahay xaqiiqa ahaan waxaa kugu yar fakarka iyo walwalka aad aakhira ka qabto taa micnaheedu waxay tahay adoon rabbigii iloobay baa markaa tahay ilaahay dib ugu laabo ilaahay bari wuxuu kuu diiday ka fogow adduunyada nolosha tan qofku meesha uu ka nool yahay waa qalbiga haddaad rabto qalbigaaga inaad qanaaco iyo deganaan ku noolaato waxaad noqotaa adoon rabbigii yaqaana adoon rabbigii caabuda dadku inta badan marka mushkilada ay ku dhacdo xagee u cararaan dadka kale u cararaan qof allaaliyo qofka isleeyihiin waxbuu kula qaban karaa ama talo ku siin karaa bay mushkiladooda la aadaan laakiin bal ka warran marka ugu horeysa ee mushkilada ay kugu dhacdaba waxay doonta ha noqoto inagu inta badan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un marka dadku ay yiraahdaan waa marka qof uu geeriyoodo mushkiladu intay doonto ha la ekaato marba hadday wax kugu dhacaan qalbigaagu uu dhibsado waxaad tiraahdaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un adduunyadan maalmaynu joognaa maalmaha aynu joogno inta yare cimri ilaahay uu ina siiyey addoommo si dhab ah rabbi ugu xiran marka aynu noqonno hubaal nolosha tan aynu nool nahayna nolol wanaagsan ayay inoo noqonaysaa dhammaantiin waxaan idinkaga tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh